بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كله وناكسن halkan oo Gorfayn TV xubintii ugu horeysay waxaan ku soo qaadanaynaa muwaadiniinta Sacuudiga oo lagu digay inay socdaalaan 12 wadan oo Soomaali ku jirto. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Sacuudiga ayaa waxay muwaadiniintooda iyo dadka deganaanshaha dalkaasi ugu baaqday inay u socdaali karin 12 wadan oo la cayimay kuwaas oo la sheegay inay ka jirto deganaansho la'aan iyo inuu sii socdo xanuunka COVID-19. marka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Sacuudiga waxaa kaloo lagu sheegay in dadka doonaya inay u safraan dalalka laga digay in loo socdaalo iyo wadamada kale ee aan laga xakameynin xanuunka COVID-19 loo baahaya inay fasax qaataan kahor intaysan u dhoofin dalalkaasi. dalalka la sheegay ama muwaadiniinta Sacuudiga loogu baaqay inay si tegi karin ayaa kala ah Soomaaliya, Turkiga, Yemen, Iiraan, Syria, Lebanon, Libya, Afghanistan, Armenia, Congo, Venezuela iyo Belarus. dhinaca kale wakaaladda wararka Sacuudiga loo soo gaabiyay SBA waxay soo wareysay in golaha wasiirada dalkaasi ay isku raaceen hirgelinta go'aan u ogolaanay muwaadiniintooda inay dibadda u dhoofi karaan kuna soo laaban karaan dalkooda laga bilaabo bisha Maarso 1 ee sanadkan 2021. wasaaradda arrimaha gudaha Sacuudiga waxay ugu baaqday muwaadiniintooda ku sugan dalalka laga digay in loo socdaalo inay iska diiwaan geliyaan safaaradaha Sacuudiga ay ku leeyihiin dalalkaasi. dowladda Sacuudiga waxay horey u qaateen go'aan lagu qaaday xayiraadii duulimaadada caalamiga iyo in si buuxda loo furo dhammaan xuduudaha Sacuudiga ee bariga badda iyo cirka ah. si kastaba haatee Sacuudiga waxaa farabaa ku hay xanuunka COVID-19 iyadoo tirada guud ee dadka uu ku dhacay ay gaarayaan 364,212 qof halka ay 6,308 qofna ay يا كلام كل الناس كانوا سامعينه وشايفينه ونحن سكتنا عليه وانتم سكتوا وصبرنا سنين طويله وكل شيء عنده حد كل حاجه عندها حد احنا نفتكر انه نحن وصلنا لحد. intiina kale waxayna ku soo qaadanay Jenaraal Cabdifataax Al-Burhani oo sheegay in dadka Suudaan ay u samreen Itoobiya balse samarku uu leeyahay xuduud. madaxa golaha iyo talada dalka Suudaan ahna taliyaha guud ee ciidanka ee dalkaasi Jenaraal Cabdifataax Al-Burhani waxa uu shalay socdaal kormeer ah ku tagay jiidda hore dagaalka ee gobolka Galbeed ee bariga dalkaasi u dhow xuduudka dalka Itoobiya. Jenaraal Al-Burhani oo saaran gaari Land Rover dushka furan waxa uu booqday deegaan ay ka mid yihiin mandiqada Jabal Al-Duyuur, Al-Quraysha, Al-Hilaaya iyo goobo kale wuxuuna ciidanka ku ammaanay dadaalkooda ku aadan difaaca dalka iyo sugidda ammaanka dadka ku nool deegaanada ay horey looga saaray Itoobiyaanka. waxa uu sheegay in ciidanka Suudaan awood buuxda u leeyihiin difaaca dalkooda iyo dadkooda iyo inay sugaan ammaankooda. sidoo kale wuxuu sheegay inay Itoobiya la yeesheen wadaxaajoodyo badan isla markaana ay u dulqaateen oo ay u sabreen balse samirku uu leeyahay xuduud. الناس يعوضوه بتأمين وبحماية وبزراعة وبتعمير للبلد إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا الشيء الفاتحة لأرواحنا النسوان إن شاء الله ربنا يغفر لهم ويرحمهم ونزمكم الصبر ويجبر كثرة إن شاء الله. آمين. بارك الله فيكم. dhinaca kale Jenaraal Cabdifataax Al-Burhani waxa uu booqday tuulada Allayaha ee degan qoysaska haweenkii beerleyda ay ciidanka Itoobiya dhawaan ku dileen xuduudka wuxuuna xusay in marxuumiintaasi loo aqoonsanayo shuhada lamid ah askarta ku geeriyootay dagaalka isla markaana ay leeyihiin حقوق جوجته الوطن والله المستعان جزاكم الله خير. بارك الله فيك. احنا النسوان دول كلهم بنعتبرهم عساكر. الشيء اللي بيقبع على العسكري حقنا اللي استشهد بيسوي له عشان نساعد اولاده ونساعد اسرته. كلهم دول احنا نعاملهم معامله شهداء ونديهم حق شهداء. الاخوان هنا في المنطقه ياخذوا بيانات. تنا ودبيسا waxa aynu ku qaadanaynaa dowladda diiday inuu diyaarad u duuliyo Israa'iil oo shaqada laga joojiyay. shirkadda diyaaradaha Emirates Airlines ee dalka Imaaraadka ayaa waxay shaqada ka joojiyeen duuliyo u dhashay dalka Tunisia kaasi oo ku gacan saaray ama diiday inuu duuliyo diyaarad ku siiday dalka Israa'iil. duuliyaha oo lagu magacaabo Munim Sahab Al-Daba wuxuu bartiis Facebook ku xaqiijiyay in shaqada laga joojiyay kadib diidmadiisa ku aadan inuu diyaaradda u duuliyo Israa'iil kana dejiyo garoonka diyaaradaha caalamiga ee loo yaqaan Ben Gurion Airport ee magaalada Tel Aviv. duuliyaha waxa uu qoraal ku soo dhigay bartiisa Facebook oo ku yiri ilaah ayaa midka kaliya ee damaanad qaadi kara daryeelkayga.
wuxuuna xusay inuusan ka cudur daaran doonin go-aankiis ku aadan inuu diido inuu diyaarad u duuliyo Israa'iil. markii qoraalkiisa ku faafay baraha bulshada waxay ololayaal badan cambaarayeen shirkad diyaaradaha Emirates oo xarunteeda ku taalo magaalada Dubai. waxay kaloo bogaadeen go-aanka duuliye Munim Sahab al-Daabac qaatay ee kaga soo jeestay inuu diyaarad u duuliyo Israa'iil. kastaba haatee Imaaraadka ayaa ah dalkii ugu horeeyay Carbeed ee xiriir diblomaasiyadeed la yeeshay Israa'iil dabayaaqadii sanadka hore 2020. sidoo kale Israa'iil waxay heshiis diblomaasiyadeed la saxiixdeen dalal kale oo kala ah Bahrain, Suudaan iyo Morocco. dowladaha Tunisia iyo Algeria waxay diyaaradaha Israa'iil ka mamnuuceen inay hawadooda isticmaalaan marka ay ku sii jeedaan ama ay ka soo duulayaan garoomada diyaaradaha ku yaala dalkaasi Morocco. taasi waxay ku qasabtay in diyaaradaha Israa'iil ay duulimaad aan toos ahayn ku soo maraan Yurub marka ay doonayaan ka degaan ama ka duulaan garoomada ku yaala dalkaasi Morocco. daawadayaal waxaa intaas inoogu dhow warbixinadii aan maanta isku soo duubnay. waxaad kala socoteen Gorfayn TV. haddii aad nagu cusub tahay daawade fadlan saar subscribe si ay ku soo gaaraan wararka warbixinada aynu soo gudbino. sidoo kale asxaabtii hore macaamiisha waxa aan leenahay nala sii jooga waqti dheer.